السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid kamida barnaamijyada aan idinku talagalnay maanta waa maalinimo Arbaca waa barnaamijkeennii koobaad taariikhduna waa 12 bisha Agosto sanadka 2026 haddaba qodobada barnaamijka aynu ku soo qaadan doono waxaa ka mid noqon doona Trump iyo Iran oo hanjabaadihii ugu cuslaa saacada ka hor hawada isu mariyay Trump oo sheegay in ay iyagu kontroolaan oo ay gacanta ku qabteen marinbiyoodka Hormuz halka Iran ay sheegtay in ay ka shalay doonaan weerar lagu soo qaado Iran Mareykanka waxayna ku hanjabtay in ay gaari doonto hanaanka korontada iyo internetka Mareykanka gudihiisa inay burburiso haddaba hanjabaadan oo tii ugu weyneyd ayaynu wixii laga yiri barnaamijka ku soo qaadanaynaa wadahadaladii Pakistan halkee marayaan fariinta uu waday wasiirka arrimaha gudaha ee madaxda Iran uu gaarsiiyay maxay ahayd yana waan idin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay xootigana waan idin hayaa qodobadaas ayaynu ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena ugu horeeya maanta Arbaca inta aan ku jirnana wixii warar soo kordho waan idin la socodsiin doonaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid kamida barnaamijyada aan ku talagalnay waa barnaamijkeennii koobaad maantana waa Arbaco taariikhduna waa 12 bisha 8 2026 haddaba barnaamijkeena waxaynu kaga hadli doonaa hanjabaadihii iyo weliba cagajuglayntii la isu dirayay ayaa si xawli ah u socota saacadihii la soo dhaafay hadday tahay Mareykanka iyo Iran haddaba wararkii ugu dambeeyay warar culus iyo hanjabaado la isdhaafsaday ayaynu barnaamijka ku bilaabaynaa haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu leeyahay Washington iyo Tehran waxay isweydaarsadeen hanjabaado culus waxaana dhanka kale Mareykanku ay sheegeen inay gacanta ku hayaan iyaga marinbiyoodka Hormuz haddaba madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo saacada ka hor hadlayay ayaa sheegay in si dhammaystiran Mareykanka uu gacanta ugu hayo marinbiyoodka Hormuz halka Iran ay sheegtay inaanay taa waxba ka jirin oo uu xiran yahay marinbiyoodka Hormuz haddaanay aqbalin Mareykanka shuruudaha Iran cid furi karta aanay jirin cid isku soo mari kartana meeshaas aan jirin haddaba Trump oo waraysi siinayay qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ayaa sheegay inay sii wadi doonaan oo ay xoojin doonaan xayiraadda ay ku hayaan badda Iran iyo dekadaheeda halkana waxaa sidoo kale la sheegay in Iran iyaduna ay hanjabaado culus soo dirayso marka hanjabaada dhankan Mareykanku marka waxaa la yaab leeyihiin dadka khubarada Mareykanku wuxuu leeyahay annaga si dhammaystiran oo kaamil ah waxaan gacanta ugu haynaa Hormuz haddana wax maraakiiba way wada mari karaan maraakiibtu ha socdaan iyo wuxuu dhihi karo ma jirto Iran marka waxa leedahay ninkan iyo idin ajarin meesha wax furan mala ilaa shuruudaheena uu aqbalo markabkii isku soo mara isaga ka mas'uule marka taas marka waa dhanka Mareykanka iyo hanjabaadihii ugu dambeeyay uu soo saaray laakiin hanjabaada dhaaftay ee ilaa hadda laga sheekeynayo sida ay ku dhici karto suuragal ku noqon karto iyo awooddaas inay leedahay Iran ayaa waxa soo baxay waxa leeyahay in kumanaan mayl ayaan tagi doonaa oo gudaha Mareykanka ay leeyihiin Iran markan haddii dagaal bilowdo gudaha Mareykanka inta tagno ayaan kaabayaashiisa dhaqaalaha daakum ka dhigi doonaa hadday tahay korontada internetka waxa dhan aan baabi'inaynaa arrinta marka cabsi weyn ay abuurtay su'aalo badan oo ka yimaadeen suuragal ma tahay mise ma ah dadka qaar waxay leeyihiin waa suuragal dadka qaar waxay leeyihiin waxa suuragal ma ahan ee waa hanjabaada isaga dhici ah marka aan idin tuso marka sheekada la yaab kale ee la qoray saacadihii la soo dhaafay haddaba marka waxaa leeyahay ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay sheegeen oo ay ku hanjabeen inay tagi doonaan maxadadka kahrabaa ama goobaha korontada Mareykanka inay tagi doonaan ciidanka ilaalada kacaanka Iran waxay sheegeen hanjabaadahan soo cusboonaaday Tehran in ay markaa 100,000 oo mayl ay tagi doonto oo markaa ay u tallaabsan doonto dhanka korontada Mareykanka waxaana ay sheegeen inay arrinkaasi dhulka la simi doonaan oo ay baabiin doonaan wakaalada wararka Iran ee leedahay Faris oo soo xiganaysa afhayeenka ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa waxa uu sheegay in
ay markaasi iiraan beegsan doonto haddii lasoo weeraro mar kale gudaha dalka maraykanka. xataa waxay u hanjabtay korontada iska daay internetka ayaa maaragtay caalamka oo dhan ayaa khatar gelaya leeda. marka hanjabaadihii ugu kululaa waay, tan waa tii ugu xumayd. maraykanka gudihiisa inta tagno ayaan korontada iyo internetka dhan jaraynaa. tan waa hanjabaada ugu weynayd waay. marka arrinkaa marka waa lagu kala qaybsan yahay. markaan akhriyey dadka say uga falcelinayaan, dadka badankiis waxay leeyihiin suuragal ma ahaan haddaysan qaab loo dhaco meelaha qaar iyadoo la maqan yahay internetka la galo oo systemka la yidhaahdo burcadda internetka iyo nidaamkaas in lagu damiyo waa suuragal. laakiin iiraan waxay taagan tahay annaga waa tegaynaa waana burburinaynaa. marka qaabkay ku burburinayso ma gantaale ku dhufanaysaa, ma qaabkan kale oo internetka burcadda internetka la yidhaahdo ayay systemka ku daminaysaa oo ay ku joojinaysaa, cablekan ama internetkan qaabkay u jaraysaa. alaamahaasoo dhan su-aalo badanaa marka ka taagan. marka waa laba meeloo dadku ay su-aalo badan ka keeneen. trump wuxuu leeyahay si kaamilaan u haystaa marinbiyoodka hormus. dadku waxay leeyihin hadduu kaamil u haysto maa furo, asaga maa maro. waa beenay leeyihin. midaan kalena iiraanna ma iyaduna tahdiidkeeda ama hanjabaadeeda waxa iska dhicin miya? ninkanba beenuu sheegay, adinkuna beentay ugu weyneed sheega miya? marka sheekadu ma runaa ma beenaa lama yaqaan, laakiin qolo walba way u hanjabtay. marka sheekadu marka xaalku marka halkaasuu marayaa. xaalkaas marka inta lagu jirana waxaa leeyahay nabadi sooma dhowaa la leeyahay. dhanka kale waxaa isaguna hadlay la taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka iiraan. jaziira waxay qortay la taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka iiraan wuxuu sheegay in wax soo saarka sawaariikhda iyo droniska aanay marnaba joogsanin iiraan oo ay si xawaaraha ku socdaan oo maalin walba la soo saaro. ninkan waxaa la yidhahdaa maxamed naqdi, waa la taliyaha sare ee taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka iiraan. waxa uu aaminsan yahay in makhaasiinadoodu ay markaa mar walba ay galayaan sawaariikh cusub iyo dronis cusub, iyagoo isu diyaarinaya dagaal kasta inay markaa iskaga caabiyaan weerar kasta oo ku yimaada. telefishinka waddanka iiraan ayaa waxa uu sheegay in ninkan uu caddeeyey in maalin aysan joogsanin wax soo saarka sawaariikhda iyo weliba diyaaradaha droniska ah. ma ujeedaa? marka sheekadaasu marka iiraan waxay leedahay annaga haddii wax dhacaan waa la kala tegaa, salaaniyo kala taga waa leeyihin meeshaas. marka hal maalinna wax naga joogsaday ma jiraan. warshadu waa iska soo wadaa droniskii, gantaalihii, wixii waa soo saaraynaa, maalin kasta way socdaan. hawshaas marka halkaasay maraysaa. waaya marka dhanka iswahanjabaada iyo colaada iyo nin walba waxa uu sheegi karo markaan ka gudubno, nabadii xaggee maray? shalay waxay noo joogtay in wasiirka arrimaha gudaha Pakistan iyo wafdi uu wato ay tageen Iiraan oo ay risaalo geeyeen. risaalo waa fariin ay u geeyeen madaxda Iiraan. haddaba saaka marka waxaa leeyahay fariintii la helay maxay ahayd? fariintii shalay Pakistan ay Iiraan u geysay. haddaba marka waxaa leeyahay maxay xambaarsaneed fariinta Pakistan ee Iiraan loo geeyay? xafiiska telefishinka Al Jazeera uu ku leeyahay magaalada Tehran ayaa wariyaha ku sugan oo la yiraahdo Nuruddin Dagheer waxa uu sheegay in markaa booqashada wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan uu ku tagay Iiraan ay xambaarsaneed fariin ku socotay madaxda waddanka Iiraan, iyadoo fariintaana ay ka timid madaxda waddanka Pakistan. haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee Pakistan oo fariinta waday ayaa waxa uu gaarsiiyay xukuumadda Iiraan, wuxuuna ku sallimay oo uu gacanta ka saaray madaxweynaha dalka Iiraan, iyadoo la sheegay fariintu toos inay uga timid ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan iyo taliyaha ciidamada waddankaasi Pakistan oo ah labada nin ee ugu sarreysa dalkaasi. hadafka iyo ujeedada la ogaaday waxay ahayd in markaa xaaladda mar kale ay ka shaqaynayso Pakistan in miiska lagu soo laabto oo markaa wafdi Iiraan ah ay degdeg ku yimaadaan halkaas. dhanka kale ninka hadda dhow loo magacaabay inuu noqdo madaxa golaha amniga qaranka Iiraan ayaa war soo saaray, waxaana uu sheegay fariin kasta oo la keeno inaanay Iiraan marnaba furi doonin marinbiyoodka Hormuz
ilaa maraykanka uu ka joojinayo guud ahaan dagaalka iyo xayiraadda iyo colaadda uu ku hayo iiraan waxaana uu sheegay xataa inaan la furi doonin ilaa iiraan dhaqaalaha ka xaniban ee maraykanka uu hayo laga fasaxayo ma ujeedaa marka fariin kasta halkeen u dhahay fariin kasta nimankan la magacaabay waa ka hadalnay ninka amniga qaranka loo dhiibay iyo taliyaasha cusub iyo oo ayatullaahi uu magacaawday waxaa la yidhahdaa dad dagaala la yidhahdaa sidoodaba ninkan weliba waxaa la yidhahdaa rajul xarb baa la yidhahdaa amniga qaranka loo dhiibay wuxuu leeyahay warqad kasta iyo nabadaa rabnaa kasta meeshaa la keeno waxa shaqaynaa male meesha waa in dagaalka nalka joojiyaa colaada nalka joojiyaa xayraada nalka qaadaa lacagta naga maqana nala siiyaa markaas waa laga yaabaa inaan wada hadalka kusoo laabano laakiin heshiiskii wixii hore aan ku heshiinay oo aan la meel marin maxaa kaloo laga heshiinayaa marka waxay leeyihiin wax kaloo laga heshiin karo ma jiraan marka qaybta ugu dambaysa waxaynu kusoo qaadanaynaa xaaladda waddanka yemen haddaba xuutiyiinta waxaa la sheegay inay weli sii wadaan duqaymaha ay ku hayaan goobaha ay joogaan ciidanka xukuumadda dalka yemen dhanka kalena waxaa sare u kacay dadkii shalay ay ku laayeen xuutiga badda baabal mandab oo maraakiibta la socday tiradooda haddaba markaan idintusoo wararkii ugu dambeeyey arrinkaa laga qoray waxaa sare u kacay weerarkii xuutiga uu ku qaaday markab marayay baabal mandab shalay haddaba waxaa lasoo sheegayaa wararkii ugu dambeeyey in markaa tirada ay kor u kacday oo markabkaasi uu ahaa markab ganacsi waxaana la sheegay tiradu hadda inay tiradu gaarayso 10 ay ku dhaawacmeen marka shalay dhimashadu waxay ahayd 4 hadda waxaa leeyahay 6 tagtay dhaawacu shalay 4 uu ahaa 10 ayaa lasoo sheegayaa marka 2 markab ayaana weerarkaasi lagu qaadaa la leeyahay shalay marka warbixinta koowaad waxay ahayd 1 markab in la weeraray marka maraakiibtaasuna waxaa looga shakisnaa inay sacuudiga u socdeen dekadihiisa halkaasaa marka lagu weeraray dadka marka halkaa lagu dhibaateeyey ee maraakiibta la socday ee badmaaxiinta ahaa waxay u kala dhasheen dalalka Pakistan iyo Indonesia marka xaalka iyaduna halkaa sidaas ayay baabal mandab wararkii ugu dambeeyay Yemen iyaguna ay sheegayaan haddaba wararkaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijkeennii ugu horreeyay maanta oo ah maalinimo Arbaca inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo iyo barnaamijyada soo socda oo aan ku soo qaadan doono wararka soo kordhay nabadgelyo